aftahanimadiisa ku caawiyo aad iyo aad baan u rajaynaynaa daawadayaasha iyo dhagaystayaashuba inay aad iyo aad markaa isagana ugu duceeyaan waa rajaynaynaa dabcan ciddii kale marka iyaguna markaas diyaar u ah inay markaa mar walba nala soo xidhiidhaan ha nagala soo xidhiidhaan baraha bulshada dhinaca facebooka waxa kale nagala soo xidhiidhi karaan studioga telefoonkiisa tooska ugu soo dhacaya idaacadda iyo xagga whatsappka oo ah 624589495 aad iyo abwaankana waxaan leenahay mar walba dabcan nala soo xidhiidh wixii aad hayso gabayada cusub mar walba aanu noqono dadka ugu horeeya ee gaadhsiiya bulshadooda Kale Radio dabcan waad haysataa page-ka like saar la xidhiidh la share gare gabayadaada xataa waad noo soo duubi kartaa WhatsApp-kaad ku soo duubi kartaa yacni numberka WhatsApp-ka aan ku heli karno wixii suugaan cidii sida wiilkeena Soomaaliga oo kale marka ka damqanaya dadkooda inuu ku soo duubi karaan numberka WhatsApp-ka baroodana ku celi waxa weeye 625489495 dadka hadda inay dhageysanayaan Minneapolis mise inay dhageysanayo wadanka Mareykanka waxaad numberka waa soo garaaci kartaa xagga WhatsApp-ka waxa weeye baroodana ku celiyo 625489495 waa tahay dabcan abwaanka weli ku jira cali maxaad oran lahayd anu maasha Allah waxaan leeyahay afkaaga caan lagu qabay aniga waxaan aaminsanahay horta abwaanada dadka abwaanada Soomaaliyeed abwaanada way yaraadeen aad baa mahadsantihiin waxaan leeyahay Soomaaliya guulaysato aan noolaato ilaahay cadowgeena ha jabsho ummadda Soomaaliyeed hadda ay kulii waqtiga nukulusiyay inaan hawada iska maqalno aad baan u salaamayaa meel kasta oo ay dunida dacaladeeda ka joogaan adinkana aad baan idin salaamayaa sida quruxda badan ee aad barnaamijka ku daadahaynaysaan ee aad hadwar ku samagulay bulshada waxyaabaha muhiimka u ah ee maanta la doonayay in laga hadlo ama la isku baraarujiyo aad kaga hadlaysaan halkaa kasii wada baan idin leeyahay inta waxaan kusii darsanaya anoo fursadda ka faa'iidaysanaya waxaan nahay ummad Soomaaliyeed waxaan nahay dad muslim ah waxaan leenahay dhaqan waxaan leenahay dadnimo qadiyadeeni iyo hadwar ku samagulay dadnimadeeni يا وحالي متقنع هل صنولة أو كره على سوسة قاعدة وح فيلي أنا وشخصيتي ذا ويلك الصوماليات والكيا مركو واحد نقول أيام واحد نقنكرا أنا مركان أنا واحد نقول أي وصل واحد نقنكرا وردت صوت الشام هاي وحاول يصير هذا وفي الصومالي ما نسوي تمات مركز سوريستان ما بس كسوق لنا أما الماء أبتي أما الماء حفرات واحد يسون قناة هذا هو الشيء أو هل اللغة دون كمية تشتغل هل اللغة تقول الله هل تقول الله مركب بدون ما سنتين وبعضها شرف عليه يو أنت دقيسة ليس أبغى الكوسة نقول إذا عتبة أما تعاون ليس مركز تقف ولي بقول أن قف هذا واحد ما إنه قد إذا ما هو أنا أقول الشخصيات هذا واحد ولا تشكل مكان ولا جزء بحبون قف كأصلي وطلع شخصيتي حتى كواني كتكواني سيدا سيكون هبون هاي سمر كان هلا بديو برشيد الملك استوى جوكتا سمر كان البديو dadkii ha loo soo duceeyo dhibaatooyinka dadka malaayiin baabadaha ku baabaysa waxaan jeclahay horta hadda ka hor aan tiriyey oo aan Soomaalidu aan kaga yaabay oo hadda arrimahan qusaysa ka hadlaysaan inaan la wadaago waxaan arkay bulshadii oo aad isku dhex mashquulsan oo saddexda qof oo meel isugu timaada oo siyaasad laga hadlaaya hablihii tamaanada iibinaya ay ka hadlayaan أدوار الكوسة وكل هاي وأدوار دي برشة النوعية ذا كلا دون قف ولي بدي سياسة وكهلا أو وحكى لبعض عن وش كيسرين دي فبكرر كمان وعنقولي سومالي دو واسمة تودا سياسة دا بيكون هذا إسفهم كانوا كمطران هشيس نور كيسة ننتو دا وحنا هاي بيهدي كور دا بس عضانا يحرات وقود عليا تلك يوتد كان ديان ما تدا ديك تام كتالا طبعا قاعد ووديك يوتلون تميجيا انت كمان نندورة انت اوديال داوين انت شيخ دوغانو الهي دين كبري دروستنا نو اخري واحد درجه حلمضن دلكين انت كسكن حقيقه waxaan dhameyn khilaaf lagu damin karay dad un dayacooda raba iyo shisheey u doonayaan ninkii duugaya bay warkiisa daneynayaan dalkeeda barwaaqada intay dal qodan lahayd ay dibad aadisay afahlibi baleek masarna ka sii darani daan shisheey iyo dagaal goobtii la kala kuwii daafici lahaa دولة سو عارسي وتومي تاسيني تأتي روحي لله مركي دوب روحي لدربط الرجال
waxaa lasoo dhaliilaya ilaa ani taariikhda dib baan usii wareysay dadka waxgaradka ilaa aadan cadda lasoo dhaliilaya cabdirashiid cali maxamed siyaad barra muuse soo wada cabdullahi yusuf hebelow ilaa soo soco ilaa farmaajo hal qof oo ay doortaan oo markan ay waxa weeyaan ay wax ka sheegaynin ama ay dhibaataynin ama ay lagu qabanin ma jirto dee ayaga baa lasoo adeegsanaya marka daadii ruuxii la dhaho markii duub loo xiraa durbaba la dhaligaya mid kasta in la doorta buu qalbiga ku degaya annagoon eegin danteenna saldana wada doonanay maxaa beri noo dambe daadiiho waxaan nahay walaala diinteeninu waa furqaan dalkan innagaa iskale khayraadkii dalka buuxa maxaa idin kala duduwo dusha isu aadiseen midba dac lagu socdaa dareenkii walaalnimiyo dadnimadaan shalay lahayn qadiidii niidahne duxi iimaankii aw maxaa naga dhigay dareel damaaciya qooma weliba dhegihii laafta u tulilay waanidu deeqdaa kulley haddaynaan gara danteenna haddaan isku gaashan weyna haddaan calankeena doogga ah haddaan dacalada la qaban oo haddaan xooggeena duman wala dugumdaagumiyo dab war oo meelo mariyo dash hubtay noqonaysa gurihii soomaaliya balaayin kala un ku intifaacaysa waddankaani barwaaqadan allow adigaa dul badan dunida adigaa iska leh abdoon daacad baan nahay ducada allow iga ajiib amiin amiin allah naga ajiibo waa tahay abwaan aad iyo aad baan kaaga mahadcelin anagii baad qiirana gelisay bahada waa tahay waa rajaynaynaa insha allah inaanay noqon markii ugu dambeysay ee codkaaga iyo markaa wixii ilaahay hiba kuu siiyay aadna soo gaadhsiisay soomaalida badan ee iyaguna ku dhagaysanayana waxaan rajaynaynaa iyaguna in qof walba insha allah uu qalbigiisa ugu yaraan uu wax ka bedelo oo siyaasad ku noolkan la iska dhaafo oo qof walba danta gaarka ah oo markaas markaa raaco aad iyo aad baan u rajaynaynaa guul baan ku rajaynayna waa bil rabadaan annaguna intaa waxaan ku daraynaa un in soomaalida weliba laga faa'iidaysto bisha rabadaan lays wada cafiyo qofka dariskiisa ah ama qofka guri kula nool ka bilaabo si cafisku isku wada gaadho dad muslimaynu nahay 100% wixii yaraa layna dhex galaynaa insha allah waxay noqon doonaan wax iska dhamaada cidna insha allah inagama faa'iidi doonto waxa la yidhi alla wateen wehel ma baahne waa taawaan barnaamijkaan rabnaa inaan soo gabagabayno waa rajaynaynaa inaad marar dambe oo badan nala soo xidhiidho ku xidhno pageka insha allah idaacadda oo baraarujina waxa weeye adduunkan magac kasta hadii lagu siiyo iyo haddaad maal kasta leedahay iyo haddaad maamuus ku leedahay qabrin baa ku sugaya fahamti waxa weeyaan tawbada ilaahay hana wada waafajiyo dhammaan ummadda islaamka waan u wada duceynayaa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waan ugu duceynayaa ilaahay inuu dhibaatada ka dulqaado inta xanuunsan masaakiinta ha loo gargaaro dadka danleyda ha loo gargaaro war ha laysu turo war markaan isu ilaahay wuxuu leeyahay markaan isu naxariistaan baa idin naxariisanaya war aan isu turna war kan masaakiinka oo aan waxba haysan oo aan hadduu aan ku samagol yahay jabkiisa maran yahay hala caawiyo oo wuxuu ilaahay mataqaanaa ku siiyey wuu awoodaa inuu asagana siiyo laakiinse waa ugu itixaamaya aadna caawi si mataqaan maankii yowma qiyaama adna aad ugu baxsatay marka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa aad baan idinkaga mahadcelinayaa fursadda iyo jaaniska aad isiiseen insha allahu guulaystaan idin leeyahay guul abaan aad baad umahadsan tahay maasha allah barnaamijkeena waxaa kusoo xigo si qodobka dambe soo baxay waxaa weeyaan wadanka hagaajintiisa iyo wadanka qashinka laga arunayo insha allah qof kasta waxaan u baahannahay oo facebook naga daawanayshana barnaamijka soo share garaysaan lana socotaan hay kowsaray dabcan waxaan joognaa guntiga gabagabadii abwaankaas maanta qiir uu geliyo aniga waan iloobay waxaan ka hadli lahaa wadankiiba maskaxda dhex tagtay waa tahay aad iyo aad baan u rajaynaynaa abwaanada kale ee tirada badan ee soomaaliyeed ee ilaahay siiyay inay nala soo wada xidhiidhaan abwaankana waxaan mahad gaara siinaynaa waqtiga qaaliga ee fara badan uu weliba bulshadiisa wax ka bedeli kara u sheegay dhammaanba aad ayaad wada mahadsantihiin dhegaystayaasha idaacadda tooska ugu xidhan iyo weliba cidda kale iyaguna khadadka kale nagala socota dabcan waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijka halkan nagala socotaan waa idaacadda kaalay Somali American Radio barnaamijkeena maxaa cusub anigoo ah Prince Ali Wadani iyo anigoo ah Kowsar Maxamed Cabdullaahi waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo